sanjabiishu waxay u leedahay faa'iido aad u ballaaran qaybaha kala duwan ee jirka sida hoos u dhigidda bog xanuunka iyo laabjeexa ka hortagidda kansarka qaybihiisa kala duwan ee jirka weerarka ku soo ah sidoo kale sanjabiishu waxay caawisaa qofka miisaanka iska ridaya oo amateedka qofka ay hoos u dhigtaa kadibna qofku wuxuu awoodaa si degdeg ah inuu miisaankiisa hoos ugu dhigo sidoo kale sanjabiishu waxay ka hortagtaa sonkorta jirka ku soo socota oo waxay caawisaa maadada insulinta taas oo awood u yeelan karta inay ka hortagto sonkorta jirka weerarka ku soo ah sidoo kale sanjabiishu waxay ka hortagi kartaa ama yareyn kartaa xanuunada ku dhici kara wadnaha sida dhiigkarka iyo kuwa lamidka ah si lamida sanjabiishu waxay ka hortagtaa caabuqa qaybihiisa kala duwan ee jirka ku baahi kara sida qofku markuu hargab ka qabo oo isticmaalo sanjabiisha iyo sanjabiishu hoos ugu dhigto caabuqa fayraska keena hargabka oo ku sababi karo xanuuno kale ama oo hoos ugu dhigi karo difaaca qofka haddaba intaasoo faa'iido ah iyadoo oo leh sanjabiisha haddana waxaa jira inaysan isticmaali karin dadka qaar oo ay khatar ku tahay jirkooda haddaba kusoo dhawaada ilaa 5 qof oo aan isticmaali karin sanjabiisha ilaa ay kala tashtaan takhtarkooda inta aanan guda galin mowduuca fadlan haddii aad nagu cusub tahay guji subscribe-ka gambaleelkana furo haddii aad ka mid tahay asxaabtii hore like share comment iyo weliba dislike waa xaggaaga haddii aan ku bilowno qodobka koobaad dadka aan isticmaali karin sanjabiisha waa qofka qaba ciladaha la xiriira xinjiro burburka ama hemophilia wax lagu magacaabo qofka qaba oo markii nabar oo ku dhaco dhiig bixiisa uu saa'id yahay waxa muhiim ah inuusan isticmaalin sanjabiisha sidoo kale waxa lamid ah qofka qaata dawooyinka xinjirta lagula dagaalamo sababtoo ah sanjabiishu waxay hoos u dhigtaa xinjirta dhiigga ku guda jirta waana ay burburisaa si lamida dawooyinka qofka markuu qaato marka qofka qaba xinjiro burburka sida caadiga hemophilia ama qofka qaata dawooyinka xinjirta lagula dagaalamo waxa muhiim ah inuusan qaadan sanjabiisha ilaa uu kala tashto dhakhtarkiisa isla markaana uu dhakhtarkiisu go'aan ka gaaro qofka labaad ee aan qaadan karin sanjabiisha waa qofka qaba sonkorta isla markaana dawooyinka u qaata sonkorta sida dawada metformin ama insulinka sidaan wada ognahay dawooyinka marka uu qofku qaato sonkorta lagula dagaalamo waxa hoos u dhaca leefaliska sonkorta si lamida marka uu sanjabiisha isticmaalana waxa hoos u dhici karta leefaliskii ama heerarkii ay joogi jirtay sonkorta ama ay hore u joogtay oo kale taas waxay sababaysaa marka si xad ka baxa sonkortiisa inuu dhacdo qofkaasna oo halis oo u galo noloshiisa marka waxa muhiim ah qofkaasina inuu kala tashto dhakhtarkiisa inuu isticmaali karo iyo in kale sanjabiisha qofka saddexaad ee aan isticmaali karin sanjabiisha waa qofka qaba dhiigkarka isla markaana isticmaala dawooyinka lagu magacaabo calcium channel blockerska ee looga hortago dhiigkarka ama wadna xanuunka qofku marka qaata calcium channel blockerska waxay hoos u dhigaan wadna garaaca qofka iyo sidoo kale cadaadiska dhiigga si lamida sanjabiisha qofku markuu isticmaalana waxay keeni kartaa in wadna garaaca qofka uu aad hoos ugu dhaco marka qofkaas si uusan qalqal caafimaad u gelin waxa muhiim ah dhakhtarkiisa inuu kala tashto inuu isticmaali karo sanjabiisha waliba asoo isticmaalaya dawooyinkan calcium channel blockerska ee dhiigkarka loo isticmaalo qofka afraad ee aan qaadan karin sanjabiisha waa qofka qaba gallstone ama dhagaxa ku sameysma xamiitida dhagaxaasi marka wuxuu xiraa baylkii ay soo saari lahayd xamiitida waxa uu soo gaari weyn doonaa mindhicir yaraha kaas oo beelkaas oo shiidi lahaa duxda ama hilibka iyo waxyaabaha oo qofku isticmaalo marka waxa dhacaysa dhagaxaasi inuu meesha xiro hadii marka meeshaas uu xirana waxa dhacaysa in xamiitidii dhacaanki ka imaanayay uusan ka soo bixin ee wax shiidin lahaa marka qofku markuu isticmaalo sanjabiisha waxa dhacaysa overproduction ama aad in loo soo saaro baylkii ay xamiitidu soo saaraysay aad marka uu soo saaro qofkaasna ma jirto baylkaas ama dareerahaas wax shiidi lahaa meeshii uu mari lahaa oo waxa xiray dhagaxa marka si aysan u dhicin overproductionkaas ama wax soo saarka saa'idka ee baylka waxaa muhiim ah qofku inuusan isticmaalin sanjabiisha inta uu qabo gallstone-ka ama ay xiran tahay meeshii ay mari lahayd dareerahaas baylka ah qofka shanaad ee aan isticmaali karin sanjabiisha waa qofka ka cabanaya miisaan yarida iyo amateed xumada qofka amateedkiisu xun yahay haddii uu isticmaalo sanjabiisha waxaa dhacaysa in amateedkiisu aad u sii liito isla markaana miisaankiisa uu aad hoos ugu dhaco marka qofkaas waxaa muhiim ah inuusan qaadan sanjabiisha si amateedkiisu ugu furmo haddii uu rabo
in miisaankiisa oo kor u qaado oo marka horeba aad u caato u yahay. waa mahadsantihiin.